madaxweynaha Soomaaliya ayaa kulan degdeg ah oo looga hadlayay dhaqaalaha iyo caafimaadka dalka la qaatay dhaqaatiirta ganacsatada iyo qaar kamid ah hay'adaha dawladda. warkaasi waxa inoo faafahinaya Maxamed Cusmaan Daahiye. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kulan talo wadaag ku saabsan xaaladda caafimaad iyo tan dhaqaale ee bulshada dalka waxa uu la qaatay dhaqaatiirta ganacsatada iyo madaxda hay'adaha dawladda u qaabilsan caafimaadka. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiintii kala qayb gashay kulankan ayaa dhamaantood ku wada gurfeeyay xaaladda caafimaad ee dalka iyo baqdinta laga qabo faafitaanka caabuqa COVID-19 iyo waxa la gudboon dadka Soomaaliyeed. kulanka markii uu soo dhamaaday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa warbaahinta la hadlay. xaqiiqatan waxaan isugu soo harnay siday tahayna sida dhabta ahna ay tahay inaan ilaahay aan u noqonno oo aan ilaahay barino inuu cudurkaan naga badbaadiyo nana dhinac mariyo maxaa yeelay awooddeenna bulsho iyo awooddeenna dowladeed dhinac walbaba dhaqaale caafimaad waxaan qaadi karna ma aha waxaan u diyaar garoonina ma aha waad arkaysaan adduunyadii horumartay oo dhaqaale ahaan iyo system ahaan iyo dowlad ahaan dhinac walbaba boqolaalo sano soo jiray sida ay ugu dhibaataysan yihiin iyo dhimashada meesha ay marayso iyo dadka uu runtii saameeyey meesha ay marayso annagu xaggee joognaa marka 30 sano yaan hawada ka maqnayn ama aan ku jirnay xaalad adag duruufo adag oo dawlad la'aan ama dawlad daciif ah oo systemkeeda dawladnimo institutionskeeda uusan dhisnayn ama burburay oo aan ku jirno kasoo kabasho hor leh aan ku jirno marka haddee ummaddeennana sidaas oo kale maxaa yeelay ummaddeena waxay u egtahay sidii dawladdoodu u egtay hadday tahay dhaqaale hadday tahay caafimaad iyo hadday tahayba bulsho ama adeeg bulsho idinkaa indhihii ah dadkiina waxaad moodaa inaysan weli dareenka cudurkan uu leeyahay iyo dhibka uu leeyahay aysan dareemin weli waa dhab ilaahay in loo noqdo ilaahay qadartiisa inay jirto wixii dhacaa inay tahay wax ilaahay ku dhacay dartiis iyo awooddiisa laakiin kama reebana taxadar in la galo oo aada loo taxadaro weli dadku waxaad moodaa in aysan qaadan awaamiirta iyo talooyinka ay hay-adaha caafimaadka ama wasaaradda caafimaadka ama dadka dhakhaatiirta professionalka oo ka hadla khabiirka u ah cudurkan inaysan weli aysan gelin oo ah cudurkan inuu leeyahay ka hortag ka daba tagiisu inuu leeyahay waxyaabo badan u baahan yahay. Maxamed Cusmaan Daahiye, Somali Cable, Muqdisho.